tan iyo dhismihii Puntland 1998 waxay Puntland waqti maal iyo dhiigba ku bixisay si loo heli lahaa dawlad federaal ah oo ay wada unkadaan shacabka Soomaaliyeed markii Puntland yagleeratay waxay madaxdii shacabkii iyo muruqii dhalinyarada reer Puntland baadigo iyo juhdi fara badan u gaareen dib u yeelidda qarannimada Soomaaliya Puntland ayaa calanka dib uga taagtay villa Soomaaliya madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Allah naxariisto ayaa calanka Soomaaliya dib u suray xaruntii Soomaaliya villa Soomaaliya bishii December 2006 asagoo watay dhalinyaradii agabkii dhaqaalihii iyo taageeradii shacabka reer Puntland